السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر دعالي وحكو شخصيتيسا magaciisa rasmiga waa aadan bare ducaale waxa uu dhashay 1969 waxaana uu ku dhashay deegaanka Balambala ee istimaada ismaamulka Gaarisa wuxuu dugsiga hoose ku soo dhigtay iskuulka hoose dhexe ee Boyston 1975 1982 waxa uu ku biiray iskuulka Gaarisa High School halka 1986 uu ku biiray Moi Force Academy oo ku yaala Nakuru wuxuu aadan bare ducaale jaamacadda Moi ka diyaariyay Bachelor of Education wuxuuna sidoo kale sameeyay koosas kale fara badan 1992 wuxuu macallin ka noqday iskuulka Sangure ku yaala dowladka magaalada Gaarisa Mr Ducaale 2007 waxaa loo doortay inuu matalo kursiga baarlamaanka dhowjiisa oo xisbiga ODM markaasi ku taganaa 2008 waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha 2013 ayuu mar labaad tartamay wuxuuna ku soo baxay tartankaas isagoo markaasi xisbiga Jubilee ku taagnaa waxaana sidoo kale uu noqday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya 2017 ayuu mar saddexaad xildhibaannimo u tartamay wuxuuna ku guuleystay Mr Alamtara Nasiibdiin oo khabiir dhanka siyaasadda ayaan wareystay arrimaha Mr Ducaale ana ka wareystay anigoo marka hore weydiiyay nin noocay ayuu Mr Ducaale wuxuuna ku jawaabay sida tan wariye aad baad u maasantahay su'aasha ayada waan la socdaa maalmaha dambe waxa la saddex wareegaya bulshada aadan bare iyo arrimaha ayaka hadda ka jiraan baarlamaanka Kenya aniga intaan ogahay baa kulli ka jawaabi kara waxaan ogahay aadan bare inuu ahaa siyaasi ama haddaba uu ahay siyaasi rogcada ah kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari khaasatan laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Gaarisa lana soo doortay ilaa saddex jeer oo kala gedisan ka bilaabato sanadkii 2007 2013 iyo waliba 2017 la soo doortay kulleeto arrimaha kudi waxa uu loo soo dooranay dadkiisa waxa ay kalsooni asaga uu ka diyaarsaday inta aniga ka garan karo habiskaatay aadan bare ducaale 2007 waxa lagu soo doortay xisbi la yiraahdo ODM oo Raila ka ahaa hogaamiye isla 2007-2008 waxa laga dhigay wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha ama assistant minister for livestock 2013 muu bar kala doorasho orday wuxuuna ku orday asagoo ku taagan xisbiga URP oo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Samoei Ruto oo ka ahaa horyaalka ahaa waxa lagu soo doortay mar labaadka xisbiga URP waxayna isbahaysteen xisbiga madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ku magacaabnaa TNA the National Alliance haday isbahaysteen marka waxay sameeyeen coalition la yiro Jubilee marka ayada aadan bare ducaale waxay u qirtay inuu ahaan karo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ama majority leader sida buu asagana xilka asagana ku helay maantana kulleeto meel kale bay iska qoransadeen ama la iska arkay kulleeto ma aaminsan inay isma qoonin jirto Mr Alamtara Nasiibdiin markaan ogaano khibradaada dhanka siyaasadda Mr Ducaale maxaa dhihi kartaa waxyaalaha uu qabtay hal iyo laba adigoo inoo soo koobaya wariye mudane aadan bare ducaale oo ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka koowaad lagu soo bilaabay 2013 sida ay ansixisay sharci bedelka la sameeyay 2010 waxyaalaha uu qabtay kulleeto waxyaalaha baaxad weyn way laakiin aniga intaan ka xasuusto ma garashadayda ay gaarsinta baan ka hadli karaa waxyaalaha aniga ka xasuusto waxaan bare waxa nin bil fara badan ansixiyay baarlamaanka la keenay maadaama uu ahay nin agood leh ama agood ka haysta baarlamaanka bilal fara badan oo hadda la xisaabi karin sidii water iyo electricity iyo bilal fara badan oo kale la keenay baarlamaanka Kenya buu ansixiyay una mariyay mooshono fara badan waa keenay oo mar badan laga dooday qaarna qabsami waayeen inta ba hadda kulleeto ka aaminsan waxa lagu qabtay sida hadda kale Gaarisa Township constituency asaga laga soo doortay inuu wadooyinka wax ka bedelay basariga CDF education ama dhanka waxbarashada lagu bixin hayay ama dhanka dhismada isbitaalada iyo xalal noocaas ay waxyaalo badan oo ka qabtay arrimaha steamerka oo ay kana cusri weyn ka ahaayeen magaalada Gaarisa in waxyaalo badan laga qabtay sida arrimaha steamerka national grid lagu xiray hadda oo maaragta arrimaha baahida korontada si fiican looga bixin sidaan aaminsanahay waxa qabadkiisa shakhsi ahaan hadda halkaas kaga imaano waa maxay waxyaabaha kale lagu dhaliili jiray maadaama aan ognahay qofka markuu siyaasadda ku jiro in dhaliilo fara badan loo soo jeediyo
dhaliilihiisa ka waran Mr. Ducaale hal iyo laba adigoo markaasi aan ku sii dheereynayno inoo dadaaray waqtiga ciriiriya awgiis wariye arrimaha kulleeto laga dhaliilay way farbadan yihiin sida hadda waxyaalaha galay kale u farbadan yihiin iyo haddana dhaliishan u farbadan tahay adduunka waxa dhan waa la waayay markan aniga kulleeto waxyaalaha laga dhaliilay aniga naftayda wali khaasan aan alamtara aan ka dhaliilay waxa kamid ah mudan Mr. Ducaale mar waxa jirtay uu dhoofe ama dawlad u sameeyay ilaa dalka Soomaaliya wana ka dagay dawlad deegaanka Jubbaland wana ka qayb qaatay cali masaarkii Axmed Madoobe oo ahaa madaxweynaha marka ayada Jubbaland waqti ay dawladda federaalka Soomaaliya tire wax dawlamadan lagu sameyn karo malaha nooga iman karo dalka Kenya iyo asaga ka dhiga adkaystay una sameeyay dawlamaadka asagoo ku madax jibinayo madaxweyne Farmaajo sida hadda kale uu yiri naagan uusan jirin day uunsata meel laga guban jirin bay ka guwataa waa ma hay Soomaali ku hadashay laakiin waxa way in madaxweynaha heer federaal ah la beegsada wax quraxsan ilama ahayn aniga maalinka ayada arinta waan dhageysanahay waana ku xumaade kolleeyto marka ayada uma sheegi karno awood uma haysanin laakiin waxaan dareemeynaa arin xun ahayd dad waqti badan la isku reebahay dagaal sokoy dib dhaxyaalay inuu asaga dhaxtaga oo madax Soomaali ah oo aflagaada dhaxgeeya dhaxdooda isku jeediya wax quraxsan ma ahayn laakiin uu sameeyay daliilaha ugu weyn lagu aaminsanahay kuwaas ka mid ahay ila dawladda waxa way dad shacab bay leedahay dawladda shacabka asaga way qiroodeen way ka xumaadeen aflagaadooyin bay soo direen iyo xaalad noocaas ah marka sida awgeed aadan bare waxa laga helay dhaliilo fara badan dhanka Soomaalida sida hadda kale arrimaha badda aadan bare wuxuu yiri taaka ay leedahay dalka Kenya ma qaadanayso Soomaaliya inta aflagaadada waxa ka keensi inuu dhahayo aniga waxaan ahaa wadani ku dhashay wadanka Kenya waan dalkayga u dhinta ma la diidano laakiin waxa kisto xumaata wadanka aad ka soo jeedo sadii raadkaaga adiga baad ku dhalatay Kenya laakiin wadanka adiga ka soo jeedo inuu motion aad ka geysatid taa kama qaadanayeen ama hawata badda agood military ku qaadanayna maadaama wadan burbursan u ahay wax qurax ma ahayn ama waxaan inay fiicanta u dareena ma ahayn anaka waxa kale oo la dhalisanahay hadda county government Garissa inay cilado badan ka sheeganayso ay dhahayeen dawladda horeysay iyo dawladda hadda lagu jiro Cali Banow qorana ka ah hogaamiye ama governatora ay dhahayeen waxaan ka shaqeyn lanahay Aadan Barre Ducaale asaga wax ilmaan la soo doortay waxaan la soo doortay Garissa inuu shaqadiisa ilaashada oo danihiisa qabsaday fiicnaan leh laakiin ma yeelin wuxuu isku mashquuliyay arrimo county government iyo wuxuu awood u heli karin waxyaalaha nooc kin kara curyaamin dhanka dhaqaalaha curyaamin isnaacib dadka dhaxdooda maaragta civil war iyo waxyaalaha qabqab daran bay dhalin kartaa marka waxyaalaha dhalisan waxa way inuu dadka madax isku galiyo kala geeyo Mr. Alamtara nasiib diin la dhanka kale ka waran waxyaalaha lagu xasuusan doono lii karo baal dahab ayuu galay oo Mr. Ducaale hal iyo laba lagu xasuusan karo lii doono inta masraxa siyaasadda uu ku sugnaa khaasatan majority la xilkaas intuu hayay waxyaalaha lagu xasuusan doono hal iyo laba hadaad inoo qaada dhigtid wariye isla markiina mudane Aadan Barre Ducaale waxyaalaha lagu xasuusan doono oo fara badan way jiraan waxay wuxuu ahaa dad la fiiriya dhanka wax qabadka waxyaalaha fara badan uu qabtaa la arki karaa ama la indha la saari karaa marka sida awgeed kulleed waxaan dhigi karnaa waxyaalo badan waa qabtay laakiin waxa la isku barbar dhigayaa qofka wuxuu qalay iyo wuxuu gooyay isla sinaadaan wuxuu qabtay lama dhigi karo gooyn lama dhigi karo laakiin waxyaalo badan uu qabtaa jir waxyaalo lagu xasuusan karo zaid lagu xasuusanay wali wuxuu ahaa nin afdahana ama baarlamaanka ka dhex muuqda 12 saacadood ka hadla motionadiisa la dhageysta codadkiisa la dhageysta maaragta ay dad fara badan ay jeclaan inay maqlaan Aadan Barre Ducaale mar walba baarlamaanka hadla ay kan u hadlaa waxa kulleeyto in xilka laga qaado ama laga la noqdo uu ku sababsadana khabiir dhanka siyaasadda ah sababaha xilka laga qaado hadda waxaan aaminsanahay inuu u janjeeray dhanka madaxweyne ku xigeenka oo madaxweynahana ka madax taagay madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta oo ahaa hogaamiye xisbiga asaga uu ku jira ama isbahaysiga Jubilee kulleeyto markay madaxweynaha lagu madax adkaado waxay la dhalin kartaa waxyaalaha noocaas oo xilka la noqosho iyo waxa kale hadda waxay is dhahaana tanga madaxweynaha aan ka madax taagnay bay dhaheen kulleeyto saas ma ku sabsay xilin laga qaado dabcan Mr. Alamtara waxaan isla soo gaarnay gabagabada doodeena iyo wareysiga aan kula yeelinayay aad baad u maasan tahay su'aasha ugu dambeeyay aan ku weydiinayo waxa waaye ka waran Mr. Ducaale miyuu faarjin doonaa siyaasadda oo masraxa siyaasadda ayuu faarjin doonaa iskaga huleeli doonaa mise waxa is leedahay hore ayuu socon doonaa arrimo kala jiraan ka waran mustaqbalkiisa guud su'aashaasi oo kooban hadaan ku soo gudbiyo anagoo barnaamijkeena ku soo xireyna wariye
aadaan fiirina mustaqbalkiisa siyaasadeed ama siyaasadiisa meesha ku dambeyn doonto mudane aadan bare ducaale waxay u muuqataa inay madmadow iyo mugdi galayso midda ayadana waxa sabaysaa in talaabada ugu hore laga qaaday ay noqotay xilka in laga xayuubiyo xilka hogaamiyaha aqalabada baarlamaanka midda soo raacsan hadda dareemi karno inay weerara ay ku soo wada dawladda Jubilee waxa kamid ah in hadda xilka xildhibaannimo laga wareegi doono oo masuq iyo KRA iyo waxyaalaha aan wali la maqan lagu soo oogi doono dambiyaal asaga u qorshaysan in madaxa loo saari doono marka ka gadaalna xilka sida loo qaad lahaa laga baaraan dagi doono isla markaana waxa suuragal ah ama dhici karo inuu mudane aadan bare ducaale ciyaar kale isku diyaariyo dhan kale ka soo ciyaaro isbahaysi cusub samaysto la safto madaxweyne ku-xigeenka Ruto ka gadaalna mustaqbalkiisa sida ku hagaago oo ciyaar kale nooc kale oo tiin madaxweynaha ka gedisan ciyaar laakiin hadda day siyaasadiisa meesha taagan tahay oo laga sii jaan qaado waxay u muuqataa inay mugdi galayso sina baaba'ayso sina dhamaanayso laakiin inuu ciyaar kale ciyaar ma sheegin aniga daawadayaal halkaasina waxaa ku eg barnaamijka maanta aanu ku eegaynay taariikh nololeedka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Mr. Aadan Bare Ducaale halkaad barnaamijkaas kala socoteen waa Deegaanka TV aad baad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.